Asalaamu calaykum. Soo dhawaada asxaabay, kuna soo dhawaada muuqaal cusub oo ka hadlaya daryeelka qalbiga. Saaxiibka kula wadaagi maayo xanuunkaaga, umana dulqaadan doono xanuunkaaga ka ku jeceli. Bedelkaaga u saamaleeli maayo ka ku dhawi. Eegow naftaada, ilaali oo kolkooli. Hana siin dhacdooyinka iyo basharka in ka badan ama ka sarreysiintii mudan yihiin. Ha ka baarin qiimahaaga dadka kale indhahooda ee ka dhex baar damiirkaaga. Haddii damiirkaagu nasto, waxaa kor u kacaya maqaamkaaga. Haddii aad naftaada aqoonsan tahay ama aad ku kalsoon tahay, kuma dhibiyo waxyaabaha dadka kale kaa sheegayaan. Ha isku culaysin marnaba hamiga adduunyo, waayo adduunyadu Ilaahay ayay subxaanahu wa tacaala u sugnaatay. Ha isku culaysin hamiga risqiga, waayo risqigu wuxuu ka yimaadaa xagga Ilaahay. Sidoo kale, ha isku culaysin hamiga mustaqbalka, sababtoo ah mustaqbalku wuxuu ku jiraa gacanta Ilaahay. Kaliya waxaad yeelataa hami kaas oo ah raaligelinta Ilaahay, waayo haddii aad Ilaahay raaligeliso, isaguna raali ayuu kaa noqonayaa. Isaga ayaa kugu filnaanaya, hodanna kaa dhigaya. Ha ka quusan nolol qalbigaaga ka weysay ee dheh, yaa Rabbi, iigu bedel khayr adduunyo iyo aakhiraba. Murugadu waxay ku masaxantaa sujuud, farxaduna waxay ku timaadaa duco. U daryeel qalbigaaga si wanaagsan, una dhoola caddee sababta dadka jecel inay arkaan wanaaggaaga. Ilaahay wuxuu yidhi, ilaa man ata Allaha biqalbin saliim. Shayga ugu muhiimsan ee Ilaahay kula kulmaysa maaha suudhaada qurux badan, ee waa qalbigaaga. Marnaba ha ka daalin daryeelka iyo ilaalinta qalbigaaga. Ha ku wanaagsanaadaan maalmihiinu tala saarashada Ilaahay. Aad ayaad u mahadsantihiin.